السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان إذن سلامي أصحابتي إذا ميل كستاد أدونك كجوكتين وحان إذن لا يسو دوادا كنا سو دوادا برنامج كلا قروح بدن هدو إبويني إذن مانت وحان إذن ودا كنيني غالا قد بدعي دال إيا دبادبا صوماليا إلى إي إست أفريكا إفيون أفر بخل maanta waxaan ka hadli doonaa saameynta uu leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay iyo sida waxyaabaha loo isticmaalo. Hadaba la socod wanaagsan waad ku mahadsan tahay la joogaaga. Hanaga hilmaamin sheerta commentiga iyo marka hore waxa vitamin E oo caadi ah oo ma jiro wax kale oo soo labeeya. Faa'iidooyinka uu wajiga u leeyahay ama uu u taro waxa kamid ah in uu wajiga iftiin siiyo, in uu ka hortago haaraha iyo falaaraha ilayska, in uu ka ilaaliyo wajiga iyo in uu duubduubka ka saaro wajiga. Waxyaabaha loo isticmaalo kaniinigani waxaa loo isticmaalaa in lagaga hortago ama lagu daaweeyo fitamiin la'aanta jidhka. Heerka jirka ee vitamin E-ga uu hooseeyo waa naadir. Inta badan dadka cuna cunto caadi ah uma baahno in ay isticmaalaan vitamin E-ga dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, kaabayaasha vitamin E-ga waxaa loo isticmaalaa dhaldhalaalka dhiciska ama dadka ay dhibaato ku haysato in ay nuugaan vitamin E ku filan cunadooda. Vitamin E-ga waxa uu muhiim u yahay inuu unugyada jirka ka ilaaliyo dhaawaca. Waxa loo yaqaanaa antioxidant. Saameynta uu leeyahay vitamin E-ga oo ku jirta kaniiniga Evion 400. Evion 400 saameynta uu leeyahay waxa kamid ah madax xanuun, dhawaqid, arag garan, lalabo, shuban, calool istaag, calool xanuun, finan. Haddaba daawade habadsan isticmaalka kaniiniga Evion waayo wuxuu ku geysan karaa inta aad ka raadinaysid in ka badan oo saameyn ah, mana sababo shaqana kuma laha in lagu cayilo. Haddaba iska ilaali. Waxaan halkaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni ku saabsanaa faa'iidooyinka iyo saameynta uu leeyahay iyo waxyaabaha loo isticmaalo Evion 400. Inta mid ka mid leeyna ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah isma dhaafno. Haynaga hilmaamin sheerta, commentiga, subscribe-ka. Intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin insha Allah. Salaamu calaykum.